Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Good morning. How are you? How are you? Good morning. How are you? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان وحاو كسابسن يهي bad habits وعادوينك حنحن يدقمض حنحن bad habits وعادوينك أما هبدقمض حنحن bad habits عادوينك حنحني are things وشيدا we do أن سمينو that annoy taasoo cadho gelinaysa ama xanaaq gelinaysa other people dadka kale or amase may appear waxay u muuqan kartaa caadooyinka xunxuni unpleasant kuwo aan farxad ahayn rude kuwo anshaxumo ah or even xitaa waxay noqon karaan caadooyinka xunxuni dangerous kuwa khatara there are waxaa jira many bad habits caadooyin badan oo xun around us oo inagu hareeraysan inaga for example tusaale biting your fingernails inaad cunto faraha cidiyaha talking inaad hadasho with your mouth full of food afkaaga cunto ka buuxda inaad hadasho picking your nose inaad sanka farta geliso waa bad habit waa caado xun not taking inaad qaadan weydo a regular bath or shower qubays ama meedhasho joogto ah being late inaad ka daahdood ka habsaanto for an appointment ballan waa bad habit waa caado xun watching too much TV inaad TV-ga in badan aad daawato drinking cabidda too much alcohol fara badan ama khamro badan such as beer or wine beer iyo wine waa nooc ka mid ah khamrada ama khamriga smoking cigarette in sigaaru qiijiyo waa caado xun not changing in layska bedeli waayo your sex sharabaadada ama sagsaanta taking for ages on the phone in badan lagu hadlo telefoonka ama mobilka gacanta do not wash your hands inaad gacmaha iska dhaqi weydo oo aad iska meedhi weydo after the toilet suuliga kadib to fart inaad ku dhex dhuusto ama ku neefsato into people dadka dhexdooda waa caado xun to bab inaad ku dhex daacdo into people dadka dhexdooda do not cutting inaad iska jari weydo finger nails faraha cidiyaha do not brushing inaad cadayn weydo teeth ilkaha regularly si joogto ah wake up late inaad xili dambe oo daahid ah ood kacdo telling lies inaad been sheegto if you are Somali we are common this one campin kunayta Soomaa hadday Somali nahay excessive mobile phone use inaan isticmaalo mobilka gacanta in badan it's fair waxa cadaalada to say in la yiraahdo that nobody is perfect ma jiro qof quman oo dhammaystiran we all have dhammaanteen waxaanu leenahay little habits caadooyin yaryar or something ama shay we do that annoy others taasoo aynu samayn karno oo cadho gelin kartaa xanaaq gelin kartaa kuwa kale sometimes marmarka qaar they may be hard waxay noqon karaan kuwa adag to accept in la aqbalo they can even lead xitaa waxayna horseedi karaan to break inuu burburo ama uu istaago of the relationship xiriirkii such as sida marriage guurka so sidaa daraaddeed
it's true waxa dhab ah to say in la yiraahdo that everyone has in qof kasto inaga mid u leeyahay some little fault qalad yar that's a but qaladkaas oo qayb ka ah of his or her character dabeecadeeda ama dabeecadiisa the only way habka kaliyata to really deal with ee lagula macaamil karo it is waxa weeye to try and live in la isku dayo laguna noolaado with it qofka or amase the consequences caqabadaha ama cawaaqibtaasi could be waxay noqon doonaan disastrous kuwa masiibo ah bad habits. Bad habits are things we do that annoy other people or may appear unpleasant, rude, or even dangerous. There are many bad habits around. For example, biting your fingernails, talking with your mouth full of food, picking your nose, not taking a regular bath or shower, being late for an appointment, watching too much TV, drinking too much alcohol, such as beer and wine, smoking cigarettes, not changing your socks, talking for ages on the phone, what's that smell? Oh no! It is fair to say that nobody is perfect. We all have little habits or something we do that annoys others. Sometimes they may be hard to accept. They can even lead to the breakup of relationships, such as marriage. So it is true to say that everyone has some little fault that is a part of his or her character. The only way to really deal with it is to try and live with it, or the consequences could be disastrous.